Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaal adiga mudan. You're welcome, my dear sister. You're not alone. Women, we go through a lot of things. Dumarkeen ahaan wax badan ayaan la kulmnaa ku saabsantay caafimaadkeena oo cuduraha inaan iyo dhibaatadan soo mari karno inaan laga hadlo weeyaan. So inaad xasuusitiin sidaa tiri to make sure the next generation and the ones going through it now know that they're not alone and you're not alone. And inshallah, information can keligii ma tihidin ma dareemsan keligaa waxaan maraysid dad badan baan wax maraya inta soo maray sometimes may ka hadlin waxaa jira dad oo kusoo jawaabay messageska yidhahan maxaad waxaan ka hadlaysaa hooyayaasheen may ka hadline dhibaato may ka haysane well maybe may ka hadlin because waxaasi sheekadaasi ceebtiis socotaa waxaan ceeb maaha waa amri lahay wax dumarka amarno weeyaan laakiin waxaa jira wax ku caawin kara maha khasab inaad aamustid and you suffer in silence. So no need to suffer in silence. Get the education ka faa'iidaysta caafimaadka aan nala sharaxayo inshallah inuu ka faa'iidaysanin kartiin share gareeya familygiina friendskiina so saxaabadiina iyo reerkiina qoyskiina ugu share gareeya idinkuna barta so inaad fahamtiin dumarka waxay maraan wada caawin kartaa hooyada walaasha inaabtada inadeerta waxaana soo maray mahadsaned